تدانا بسم الله الكريم العظيم مدحوينها جمهورية سوماليلاند قدوميها قولها قورتيدا مدحوينها كحيقينكي هوري xubnaha golaha wasiirada meeyarka caasimada gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida iyo dhammaan dadka sharafta leh ee halkan isugu yimid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa muddo fara badan iyo waqti fara badan aynu Somaliland soo dhisaynay ma ahayn mid si ismuusa u socotay waxay ahayd marar badan caqabado iyo dhibaatooyin laga soo gudbay baa jiray markii maamulada la dhisayay Somaliland haday Boorama noqoto haday Hargeysa noqoto haday Burco noqoto haday Cerigabo noqoto haday Laascaanood laftirkeeda noqoto waqtiyo badan iyo time badan ayaa lagu bixiyay in maamulada Somaliland ay hana qaadaan iyadoo markasta lala kulmayay turaanturooyin badan kama duwana kuwii dalka soo maray tan maanta joogta ka dawlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan waxaanu isniri xakameeya inaan wax khasaare ka dhicin waxaanu joognay sida aad ogtihiin waxaan ugu tagnay registrationkii golaha iyaga wasiiradu qaarkood annagu sanaaduuqii baanu daba socon marxaladda aanu ka fakeraynay waad garanaysaa halka maskaxda iyadu iyo qaabkaanu u jeednay markaanu meesha tagnay waxay ahayd in dimuqraadiyaddana la horumariyo registrationkii iyo dadku galaan sanaadiiqdii baanu daba soconay hawlgal sanaadiiq baanu ku socon luckily ama unluckily arrintii waqti yar ayaa isku bedeshay waqtigaa wixii ka dambeeyey runtii aniga oo deegaanka ka soo jeeda waxaan qirayaa in ka xukuumad ahaan iyo ka dawlad ahaanba in la yareeyay oo la isku dayay sabab kasta oo lagu yareyn karo ama aan dhibaato u gaadheen dadka deegaanka mararka qaarkoodna waxaa xukuumaddu qaadanaysay go'aamo ah aan dhanka kale laga soo dhaweynin oo ah in markasta ciidanka qaranka iyo establishmentkii dawladda marka la soo gaadhaba la yiraahdo ilaa iyo madaxweynuhu soo gaarsiiyay inay ciidamadu magaalada iyo deegaamadii magaalada gudaheeda ay ka baxaan isagoo dhowraya ama annagoo dhowrayna in aan kashwaalatiga ama dhibtu aanay badan ilaa iyo haddana sidii bay ku socotaa weli waxaan qirayaa qof kasta oo muwaadin oo reer Somaliland iyo qof kasta oo deegaanka ka soo jeeda inaan cidina dhib jeclayn waxaa la isu geegeeyey arrintaa ka dhacday meesha waa arrimo la isu geegeeyey oo ah waxaan halkan ka diraynaa maanta dadkii reer Somaliland waad u jeedaan ummadda reer Somaliland taariikhiyan bay wax wada lahayd taariikh bay ku wada noolayd marka dawladaha iyo ilbaxnimada laga tago muddo 600 ama 700 oo sanadooda ayaa dadkani wada noolaa wada noolaan jiray waana wada noolaan doona marka dawladahaba laga tago waqtiyadii dawladaha la gaadhayna taariikh ayaa la wada lahaa ballaaran oo soo martay waxaan leeyahay waxaa difference-ka ee hadda yimidna waxaa laynoo ka baahan yahay inaynu dhammayno
garaadada deegaanka ka soo jeeda iyo waxgaradka deegaanka ka soo jeeda waxaan qirayaa walaga yaabaa taladu dad badan oo aan xogogaal ahayn inay talada ku jiraan waa laga yaabaa laakiin haddaan waayo aragnimadayda ku hadlo aan israacdo maanta muddada 32 sannadood ee Soomaaliland jirtay geed ay tagto oo aanan joogin ma jiro waxaan qirayaa oo aan oranayaa anigoo aan ka gaban cid u dhaantay Soomaaliland iyo dhul bahantay isu dhaantaa inaanay jirin haddaan maanta tala ka bixin kari waayo Soomaaliland anigoo 32 sannadood geed kasta taagnaa haddaan maanta Soomaaliland tala ka bixin kari waayo ama xaqiiqdeeda sheegi kari waayo ama dadka deegaanka aan ka soo jeedo dantooda u sheegi kari waayo waxaan noqonayaa qof aan waayo badan iyo waqti badan soo joogin haddii qof dhageysanayo ama uu imaqlayo waxaan leeyahay tabasho way jiri kartaa qofku wax waa istusi karaa awood qaybsiga qofku wax waa ka sheegan karaa dadka reer Soomaaliland maanta hor jooga waxay diyaar u yihiin in wax kasta oo tabasho ah miiska la isugu yimaado laga wada hadlo waxaan leeyahay dadka deegaanka ka soo jeedaana fariinta ha maqleen ehel iyo dal iyo ummad islabaynu nahay walaalayaal ehel iyo dad iyo ummad islabaynu nahay dalkaynu wada leenno ceelkaynu wada leenno carshintaynu wada leenno xoolahaynu wada leenno cid ina kala sooci kartaa ma jirto oo waad ogtihiin sida deegaanadeena iyo xoolaheena iyo dhulkeenu isku yahay aad baan idin salaamayaa waxaan qirayaa in dadka deegaankani jecel yahay dadka deegaanka waxaan qirayaa raggii ugu mudnaa ee taladan wax ka fariisiyay ee talada reer Soomaaliland loo majeertay ee waday inay ka soo jeedeen deegaanka anigoo aan faaninay marka loo eego raggii Soomaaliland wax ka dhisay 91 cid la kaliibara marka loo eego deegaanka reer Soomaaliland ama ka aansan ama ka aqoon badan marka loo eego dadka deegaanka ka soo jeeda raggii ugu mudnaa iyo raggii ugu aqoonta badnaa iyo raggii ugu aansanaa bay ahaayeen raggii Soomaaliland wax ka dhisay haddaan siraado maanta dabada ka gal oo sheego 2 hours bay ku qaadanaysaa magacooda iyo title-kooda iyo waxay ahaayeen waxaan isleeyahay raggii wax yar baa ka sii jooga raggaa garanay laakiin waa laga shaqeeyay qaar baa yiraahdo deegaanka ay ka soo jeeda rag badani ma tegin haddii cid sharaf iyo karaamo iyo aqoon iyo dawladnimo iyo magac lahayd ragga deegaanka ka soo jeeda Soomaaliland ka soo qayb galay anigu ragga yar baan ahaa ragga markaa ragga daba jooga ayaan ahaa rooga labadan iyo rooga saddexaad baan siyaasadda ku jiray waqtigii Soomaaliland la dhisay laakiin raggii ugu mudnaa Soomaaliland deegaankaas ka soo jeedeen waxaana isleeyahay taariikhdu way isqori doontaa cid kasta iyo qof kasta oo bilaaadana oo deegaanka ku nool nabad baanu ugu baaqaynaa iyo ehelnimo iyo walaalnimo iyo wixii jiray laga wada hadlo guul baan idin rajaynayaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.